xabsi ay uga dhex dhisay gurigeeda kadib markii ay qatiyaan ka istaagtay wiilkeeda oo maandooriye qabatimay. intaan u gudagelin sheekadan xisaab badan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. hooyo 64 jir ah oo u dhalatay dalka Thailand ayaa ka yaabisay bulshada dalkaasi kadib markii wiilkeeda oo 42 jir ah ay xabsi uga dhex dhisay gurigooda. ninkan 42 jirka ah ayaa waxaa qaatil loogu istaagay maandooriyaha oo uu aad u qabatimay. hooyada dhashay ninkan ayaa waxa ay nafteeda uga baqday in uu dhaawacyo culus uu gaarsiiyo kadib markii uu dawooyinka uu isticmaalo uu ku darsaday in uu qamaarka ciyaaro. in ka badan 20 sano ayuu wiilkeeda oo 42 jir ah isticmaalaya maandooriyaha, laakiin hadda haweeneydan oo 64 jir ah oo ku nool bartamaha dalka Thailand waxay la timid arrin shartiisa ay ugu nabadgelin karto nafteeda iyo deriskeeda. dhowaan ay qolada dhismaha qaabilsan ka dalbatay in ay xabsi uga dhex dhisaan gurigeeda si ay ugu korjoogteyso inankeeda. waxay booliisku u sheegtay in wiilkeeda ay kala daashay goobaha lagu dhaqan celiyo da'yarta maandooriyaha qabatimay ee dalka Thailand oo dhan ku kala yaala, laakiin wax ka soo naasacadaado ay weysay. wuxuuba sii noqday carcar iyo qof maran oo dadka la dagaalama. waxayse kasii dartay xaaladiisu markii inankeeda uu maandooriyaha ku darsaday qamaarka in uu dheelo. waana markii ay go'aankii kama dambaysta ahaa qaadatay hooyadii oo ay go'aan ku gaartay in ay indhihiisa ka qariso qoraxda. muddo badan ayaan cabsi ku noolaa, ayay u sheegtay warbaahinta. tan iyo markii uu saygeygu dhintay ayaa isla nooleen wiilkayga. niyadjabkii uu ka qaaday geeridii aabihii ayaa sababtay in uu waaqiciga kaga dhuunto isticmaalka maandooriyaha. sidaas darteeda xabsi ayaan guriga ugu dhex suubiyey si aan nafteyda iyo jaarkayga ay uga nabadgalaan, ayay tiri haweeneydan. xabsiga waxa uu qaabaysan yahay sida xabsiyada oo kale. waxa uu sii dheer in uu leeyahay internet oo uu ku dhex isticmaali karo iyo sidoo kale kaamirada CCTV oo ay dhaqdhaqaaqiisa kula soconayso. lama oga sida ay booliiska arrintan ku ogaadeen, balse markii ay booqanayeen gurigeeda ayaa wejigooda laga fahmi karay in aysan la dhacsanayn tallaabadeeda. qolada sharci yaqaanada ahi waxay ku doodayaan in falkan ay haweeneydan kula kacday wiilkeeda oo noqon karo xadgudub ay ku meel martay sharciga xeerka ciqaabta ee dalka u degsan, waxayna u badan tahay in lagu qaadi karo dembigaasi. balse booliiska ayaa sheegay in ay burburinayaan dhammaanba xabsiga guriga ay ka dhex dhistay haweeneydan, waxayna u ballan qaadeen in ay geyn doonaan wiilkeeda meel ku habboon ammaankiisa iyo naftiisaba. sheekadan ayaa daboolka ka qaaday sida ay maandooriyuhu dhibaato ba'an ugu hayso dalka Thailand.